war degdeg ah madax ka tirsan Somaliland ayaa si cad ugu hanjabtay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Maxay tahay sababta Somaliland ay madaxweyne Xasan ay ugu hanjabeen? Maxaase ka jira in Somaliland ay ku qasbanaan doonaan in ay qaataan dalkugalka adeega e-visa marka ay imaanayaan gudaha Soomaaliya oo dhan? Intaas iyo in ka badan ayaan soo gudbinaynaa saaxiibayaal, balse marka hore waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan inaan gaarno malaayiin qofood. Kaliya waxaa ka dhiman idinka waa hagaag. Halkan waa hoyga Banaadir. Madax ka tirsan Somaliland ayaa hanjabaad hawada u soo marsiiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, iyagoo ku hanjabay in madaxweynaha Soomaaliya ay ka gudbin doonaan dacwad caalami ah, taas oo la xiriirta inay sheegeen in madaxweyne Xasan uu faragelin siyaasadeed uu ku hayo Somaliland. Maalmihii aynu ka soo gudubnay waxaa Somaliland cadaadis iyo carab badan ku abuurtay adeega e-visa, taasi oo ah dalkugalka ay leedahay Soomaaliya. muwaadiniin reer Somaliland ah oo doonaya inay imaadaan gudaha dalka Soomaaliya ayaa lagu cadaadiyay inay la yimaadaan adeega e-visa. Saameyntii arrintaas ka dhalatana waxay gaartay in madax ka tirsan Somaliland ay hanjabaad cad ay u soo diraan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa maanta la hadlay warbaahinta, waxa uuna si kulul u weeraray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Waxa uu sheegay in dad badan Somaliland horey ay u soo dhibaateeyeen, balse Somaliland ay leedahay adkeysi iyo sabar ay ku sii joogto. Waxa uu u digay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, isagoo sidoo kale sheegay in madaxweyne Xasan intii aan la dooran uu ku ololeyn jiray in Somaliland madax bannaanideeda xur laga dhigo. Bal waa kan gudoomiyaha xisbiga wadani oo jeedinaya hanjabaadan nala daawo. waxaan u sheegayaa dawladda Soomaaliya iyo inta hagardaamaynaysa gaar ahaan arrinta e-visa oo caqabad ku noqotay dadka reer Somaliland oo ay ugu tala galeen inay mala ku dhibaan dadka reer Somaliland ku dhibaan. waxaan arkayo diyaaradda la soo raacay dad badan oo dhibsanaya arrinta. waxaan leeyahay dhib intaa ka badan baa inaga soo martay Soomaaliya. ma aan safilaynin mas'uuliyiinta Soomaaliya inay weli u ciil qabaan dadka reer Somaliland ilaa ay cidhiidhi geliyaan. waxaan si gaar ah u tilmaamayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo hore ugu ololeeyay oo laga hayo isagoo leh reer Somaliland diblomaasiyad iyo cudud iyo dhaqaale midna cidhiidhi ku gelin maayo. waxaan u sheegayaa tan maanta inay tallaabo tahay tuu sheegaya oo beeninaysa oo burinaysa wixii uu sheegay. waxaanan leeyahay adigay ku taallaa haddaad ku adkaysato dadkan dhibtiisa. qaar hore oo dhib u geystayba kama imcaashin. Si kastaba ha ahaato, Somaliland maalmahan waa lagu dhegan yahay, xaaladana way ku xun tahay. dhowr jeer waraaqada ayay u direen dalka dibaddiisa, lagama soo jawaabin. waxay raadiyeen ictiraaf in ka badan 30 sano, weli cadaadis ayaa saaran. lama oga hadalka ka soo baxay gudoomiyaha xisbiga wadani waxyaabaha uu ka bedeli doono go'aanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo sidoo kale adeega e-visa ee dalkugalka Soomaaliya. shacabka reer Somaliland ayaa maalmahan qeyladhaan afka furtay, kuwaas oo baraha bulshada ka sheegayay in ay muqadas tahay in Somaliland madax bannaanideeda loo sii daayo. laakiin shacabka reer Somaliland way kala qaybsameen. kuwa waxay sheegeen in xilligan runta ay ogaadeen Soomaalina ay ka mid yihiin, halka kuwa kalena weli ay ku dhigan yihiin inay Soomaaliya ay ka madax bannaan yihiin. haddaba daawada aragtidaada nagula wadaag qaybta hoose commentiga. qodobka doodana, Somaliland miyay ka go'i kartaa Soomaaliya mase weli waa qayb ka mid ah Soomaaliya? nabadgelyo.